السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشاد الصوماليات ميل كستا دوليدا دافعه إذا كتشوفتا وان السلامية سيدين ودوغناهي تعدادي كدعده هوتيل بولاد مقالة هرقيسة شوجو فرحية فيسكو waxaa qasar silmo ay ku dhintay tawaariikh aad u adag Hodan Cabdiraxmaan tawaariikhdaas oo ay ku soo gaareen dhawaayaha balse Hodan Cabdiraxmaan arinta kamay daba harin waxay samaysay dib u gurasho xeelad dagaal waxaana tagtay gobolka Awdal halkaas ay ku qabatay show aad u ballaaran oo loogu magac daray sagootintii Hodan Cabdiraxmaan balse showgaas inuu ahay sagootintii Hodan Cabdiraxmaan waxa uu ahaa show ay kaga jawaabayso kan taariikh kaga yimi khadra silmo haddaba jawaabaha ay bixisay Hodan Cabdiraxmaan ma yihiin qaar iska xijin kara ama ku haboon sawaaridii ay soo ritay khadra silmo waxaanu samayn doonaa inaynu isu taagno jawaabahaas bal kamada u horeysa ila dhageysta inagu hordhay maayo قبيل ما يقلدو وصلك قود كي كرتاي قلبي قهنتي كوما قويسو الله عواناك مكين الله عواناك مكين waxaan filayaa inaad si wanaagsan u dhageysateen hadalka Hodan Cabdiraxmaan ay tiri waxay tiri Hodan tooxu qabiil ma yaqaano haddana waxay tiri qalbiga hanti lagu ma iibsan karo labada kalmadood baan isku taagaynaa waliba shacabku aad u hadal hayaan mid u horeysa haddii tooxu aanu qabiil aqoon Hodan Cabdiraxmaan hadalka ay sheegaysaa uu yahay qabyaaladna ay ka madax bannaan tahay maxaa Hodan Cabdiraxmaan magaalada Hargeysa dhexdeeda iyadoo joogta ay khadra silmo ugu jawaabay ee magaalada Booramaynta show ku qabatay halka ay uga soo jawaabtay mise waxaa run noqotay maahmaahdii Soomaaliyeed ee ahayd makulaashu mininkeeda ay miciye libaax ku leedahay kelmadda labaad ee shacabku isweydiinayaan waxay tahay Hodan Cabdiraxmaan tiri qalbiga hanti lagu ma iibsan karay balse waxa su'aasha la isweydiinaya waxay tahay qofka qalbiga hantida ku iibsanaya ma Hodan baa mise waa khadra silmo anigu su'aasha kama jawaabayo waxa ka jawaabaya shacabka faraha badan la dhageysanaya balse jawaabihii laga sugayay Hodan Cabdiraxmaan ma noqon qaar ay iskaga difaacdo kantaalihii kaga yimi khadra silmo haddaynu se ka gudubno balala dhageysta kelmadda kale jirna labo matana hadalada Hodan Cabdiraxmaan tiri Hodan waxay tiri laba mataano mid ayaynu nahay naftu iyo muruga iyo cilmu taysan ee ka agmuuqo oh my god balse waxaynu oran karnaa hadalka Hodan Cabdiraxmaan ay tiri ma aha mid ay iskaga difaaci karto ama jawaab u ah kantaali ay soo dhitay khadra silmo balse waxaynu oran karnaa Hodan waxay la gagabtay ama la sirirtay kantaali laga soo riday hotel gure ee waliba ay soo ritay khadra silmo haddaynu dhanka kale u dhigno ninkii Mursal Muuse goobta wuxuu ka qaaday wax loo kala garan waayay hees iyo buraanbar oo dadka qaarna ku micneeyeen walaalay sharciga Ameerika ii samee ila daawada waa ninkii Mursal Muuse oo jilaya filimkii la magac baxay jacaylku waa maadeys Mursal waa matalaya daawasho wanaagsan جعيل
waxaan filayaa inaad si wanaagsan u dhagaysateen heestan la magac baxday walaalay sharciga Ameerika ay samee waxaana heestan noogu luqeynayay aktarka caanka Mursal Muuse isagoo jilaya filimkii laga magac baxay jacaylku waa maaday Mursal waa matalaya filimkan oo laba qaybood ka koobnaa oo lana sugayo qaybtii saddexaad inuu dhawaan soo saari doono waxa kale la sugayaa in Khadra Silimo ay gantaalo labaad ku soo rido Hodan Cabdiraxmaan kuntii gabagabadii barnaamijkii aan idin daadihinayay anigoo Daakir Saalax Askar ah intaas ayuu leeyahay intayna barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh